koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan hoy soomaaliyey hoy haddaad wax maqlaysaan hadalkayga qaato dalka horumarkiisiyo howl hadidinaye hor ilaahay baa laydinku dhaashay ha halmaamina danteenna yaahu aryaa ma eriyaadda waxa kaa cuntaxaad la howhooweyhe war hor ilaahay baa laydinku dhaarshay ha hilmaamina danteenna ma waana mase waa hadal xun maxaad ninka sidaa u leedahay war kuwii hor ilaahay lagu dhaarshay baa dhaartii fulin diidaye muu ayaga la hortago ma annagaa nala dhaarshay war malaha dhaar siyaasiyeed dadka maba qabataan u mali nin dhumaayaa la yidhi dhulkii dhaaya ma leh marka hore kuwa dhaariyaa qaldan oo waxay dhahaan ma kugu wallaahiyaa inaad dantaada danta guud ka hor marayso mugna waxay dhahaan ma kugu wallaahiyaa inaad danta guud dantaada ka hor marayso waana isku mid lamada eray sidii ayna sameeyaanoo danta hor ay hor barayaane xaal lagu heestaa waranu waxaan dhihi lahaa bulshaa idin sugayso dad baad ballan u qaadeene baabacada midig baad kitaab ula bareerteene bilaahdiyo dhaartaad gasheen ma aha beenbeen aryaada madaxweyne farmaajo markuu ka khudbaynayo furitaanka safaaradda jabuuti wuxuu yidhi cusmaayil umar gellahan wax ka baranno intuu joogay maamulladeennu wax badan bay isbeddeleen waxna nooma qabsoomin asaguna keligiis buu joogay wax badan buuna qabtay marka hadalkaas waxaan u fasirtay ballamihii iyo dhaartii 4 sano laguma fulin karee 20 sanaha laii kaadsho sida ismaaciil nabee war leesu ma haayo yaadadaaba 40 sano sugila oo inuu haddana dhaafo jecel asaguna 4 ka badan inuu sii joogo rabi lahay waa kaafiya kala dheeri war ninka suguli meelu wax ku og yahay ma qaane gabaga madaxweynaha dhageyso jabuutiba ninuu baa xukuumaddan iyo goor dheere annaguna sidoo kale inaan noqono weeyaane ii kordhiya xilliga waa intay noqoto fiicnaane intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin war nimanyahow madaxweynaha wakhtiga ha loo dheereeyo ma xuma sababtoo ah tubaha qaranka ayaa dheerdheer war dastuurka kuma qorno tuba dheerdheere hadda ha lagu soo daro ilaa tubuhu dhammaadaan inaan doorasho la gelayn alla ilaah madaxda qish fiican baa siisaa hadday u fulayso war madaxweyne xaaf 2 sana la isku ogaayay waa bedel dastuurka dhan 2020 uu ku dhigtay madaxweynaha Soomaaliya dastuurka dhan ha bedela 2040 ka dhigtay asagana war madaxweyne xaaf hadduu yidhi ahlu sunna markaan heshiinaha xilligu ka bilowday farmaajona Soomaaliland ha la heshiiyo si uu yidhaa xilligu wuxuu bilowday markii Soomaaliya heshiisay aryaa Soomaaliland waa fogtahay farmaajo shabaab ha la heshiiyo si uu yiraahdo mugaan shabaab la heshiinay ka bilaabay haysaa war madaxweyne Said Ahmed Madow daacish la heshiiyay si uu dhaw markaan daacish la heshiiyay ayay ka bilaabatay malaay badda ku jira rabtaa xawaajiis intana ku tumatid allah yow dadka toosisaa helaya tawfiiqe halkan tiigsanayniyo wuxuu tabaya uurkeenno tab iyo maaro uma lihin jidkuna taan u dheeraaye dawladnimo tisqaadan rabow ka turaansaday tubta toosan eebo madaxa tooshka ugu nuuri wali tubiya joogta tuura ka soo baxde warnimayo waa iska waramo haysin dagaal khaldaca socda qawiil la isku qabdhawo haya habeenkii caruurta miska dileen qabiil la isku qoordhabe quraanka la qalaafe wax ma ogdiina dagaalka shabeellada dhexe dhuq aaliska sii dhimashadana 40 ay kor u sii dhaafaysaa oo dhaawiciina magaga iska bataa meel la geeyay la waayay xataa qaarkood xamalaa la keenay dagaalka xabaad leh ma soo gaarina war meesha lagu dagaalamo boorka la iska kiciyo waa xiraale laba qabiilana waxay isu qaybiyeen sunna iyo sufo sunna waaba maqli jiraye sufana qabiilkee ahayd qabiilka ma naga dhaaftiino khamsharkan iyo xanuune war sheekh shaakir labada qabiila sufa iyo sunna isku qaybiyo kuul la saftay war dhinaci macallinku raaco ayuu sheekhu la jiraa war Soomaalidu waligeed bay qabiil isu dili jirtay laakiin waxa u noolaa dhaqan kala badbaadiya oo inta dhex galay ila joojiya dagaalka oo wax u kala qaada dhaqankaasi waa dhammaaday waayihii dambe waxa soo haray kuwa idaacadaha ka hadla ayagiina waa la waayay marka maanta waxaan ogaaday inaan cidina iga xigin oo boos u soo baxay dadka Soomaaliyeed oo walaalaha waxaan ugu baaqayaa oon ka baryayaa
oon kula talinayaa dagaalkaa inay joojiyaan. anigu guddoomiyaha sawirrada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dadka maanta qabiil isku laynaya waa taageerayaashiisa inuu kala dhacsado dadkaas iyose isku baabi'in. warwarkaa iga dhex gelinay dhegayso. wax dadkii gartaa kama wabxaan sun iyo waabay waagii baryaba dhiig walaal wagac ma siiyaan wiifto iyo wareentiya xabado kama wayoodaan walaalow walaalkaa hadilin oo wad haw noqon. warabwaan subkan allah u naxariista wuxuu yidhi dalka nabad ha loo wada degee demiya baaruudda daawooba duul qayrqabay deeqi waanadu. aryaab waa nin dhageelle wuxuu yidhi allow yaa isgarabsada kollay kale ma guurtaane. warnimayow dadkan hadday wax maqlayaan abaan cabdulaahi suldaan dimacaddaa 50 sano kahor wuxuu yidhi dubba madax waa iskala dhacdaa daayin abidkeeda dadka kama yaraateena waa isdaban jaraysaane dugsi mala qabyaaladii waxay dumise mooyaane. war anigu odayaasha hurday waxaan dhihi lahaa colaad laga heshiiyiyo inay dhalato caaqiibo cuqaashiyo ergada waa xilkii loo imaamaday cimrigiin jirye dhaqanka waan ciriqsanaynaaye kaalintiinna cuuf iyo wareey qarinna ceeryaamo. waxaan maqli jira cimrigii jiryow caynaankaay hay hay weligahay hay hay hay. war waxaa ka dambaysay cimrigaa gooyaya caynaanka daa saas ma ahan waxa waaye cumrigaa raagaa la yidhi geel dhallaa isku tusaa. araada war ma haysine wasiirka arrimaha gudaha waxaas yidhi dagaalka joojiya. meeha maastagi mas idaacaddaas ka warrami. aree qarafaad dagaal ma aadee meehaan isagoo joogaas yidhi dagaalka joojiya. anigu warkiinna waxaa ku soo gebagabayaa haddii aad wax maqlaysiin qabyaalaad leesku qacdheeba qarannima ka qaayaaweyn qabyaalaad leesku qacdheeba qarannima ka qaayaaweyn. haye war golihii shacabka iyo golihii safka khilaafkoodoon la xallin baarlamaanku ma furmayaa layidhi waxaana socdaa layidhi wadahadal lagu xallinayo. war shabeellada hoose dhulkii ciidamada ay ka soo baxeen shabaabaa la wareegaa la yidhi. war ciidanka mushaarka waa loo hayaa oo waa loo aruurinayaaye maxay uga soo baxeen difaaca. inta mushaarka ciidanka loo hayo shabaabna difaaca waa u sii haynayaan. markii loo aruurahay maxaa ayuuta miya. war ayuutada waxaa lagu aroosiyey qaxootigii xerada dhadhaab ee kenya dumar isxilqaamay ayaana dhaheen qoysba maalin maan ayuuta ku dhisaynaa. war anigu dumarkaas dhadhaab jooga waa u hambalyaynayaa. garab walaal isku guur yaa gaari karaa. war ma haysaane somalilan maanta waxaa tegey wasiirka arrimaha dibadda ee lataliya hargeysana wadaxinowgiyaa gaaro wasiirka waa loo xihay waddooyinkii. maxamaray ka masayreen. war inay ictiraaf ku helayaan ay u mudaan wadaxorew aniga dhibaan ku qabnaa. oo anaka jug iyo colaad iyo qalaafle kuma jiri karnaa goormaan beerihii tabcanaynaa unikane. adduun bilkow aakhir bil lamala tabcaysiin. warnimada waxaa la yidhi butin iyo taraan baa adduun looga tegayaaye turkish iyo israa'iil baryahan say isugu tooqi urdugan talaabiib inuu toogta waa u halise ula booxa la isugu tukuba la istixgelin waaye. war hindiya nin bidaar lahayo timi loo beeray aa ku dhintay. xaquuq dastuuriyu iska lumay bidaartu soo naafa maaha. aryaadhaha muqdisho ma ilowda weedinka murun la macmac leh. aryaa muqdisho bugtii balaayada maa ku cusub. muqdisho waxay maasiibaadan mar walba ku muutaysata muqdisho waxay maasiibaadan mar walba ku muutaysata. caasimadannimada masiibaha wariya tawfiiqda allahaydu waafajiye.